waxa uu ahaa shaqaale iska caadi ah balse wuxuu isku bedelay xidig caan ah oo caalami ah balse wax walba way isbedeleen markii ay ku dhacday arrin filan waa ku noqotay oo burburin gaartay noloshiisii maxay tahay sirta ka dambaysa atooraha jilay musalsalka caanka ah ee waadigiyeyda ee atooraha magaciisa la yiraahdo Najati Shashmaz ilaa yaraantiisii waxa uu ku himiloon jiray mar uu inuu u hijroodo oo dego waddanka Mareykanka markii uu dhamaystay dugsigiisii sare waxa uu safray waddanka Mareykanka isagoo halkaas ku noolaa muddo 6 sanadood ah waxa uu shaqaynayay shirkad ka shaqeysa dalxiiska noloshiisuna waxay ahayd mid aan caadi ahayn oo heer sare ah maalin ayaa waxa uu dareemay inuu aad ugu xiisay waddankiisii Turkiga 2001 ayaa waxa uu raacay diyaaradaas oo u jihaysatay halkaas iyo Turkiga isla maalintaas uu ka duulayay waddanka Mareykanka ayaa waxa dhacdo taariikhi ah oo ahayd 2 diyaaradood ayaa waxa ay galeen daarihii mataanaha Mareykanka halkaas oo ay dhacdo taariikhi ah ka dhacday bishii caanka ahayd ee 11 September ee lagu burburiyay daaraha Mareykanka Najati waxa uu ogaaday warkaas khatarta ah ee argagax leh markii uu ku laabtay waddanka Turkiga waxa uu yaqiinsaday in uusan ku laaban karin waddanka Mareykanka mar kale sababtoo ah waxa uu yahay muslim waxa la ogaarsanayana waa muslimiin waxa uu go'aansaday in uu qoyskiisa la joogo waddanka Turkiga uuna raadsado shaqo balse nasiib darro Najati ma uusan helin shaqo mushaar fiican leh xaaladdiisa maaliyadeedna aad bay u adkayd waxa uu iska noqday shaqaale shirkadeed oo iska caadi ah kadisyada adduunku badane lama filaan iyo kadis baahaleelay arrin badashay noloshiisa gabi ahaan walaalkiis Raji ayaa waxa uu alifay buug ama kitaab uu rabay inuu u bedelo musalsal yani sheeko ayuu qoray buug buu ku qoray waxa loo bedelayay sheekadaas maartay musalsal waxa la waayay cid qabata oo matasha atooraha musalsalka noqota Rajina wuxuu soo sharaxay walaalkiis wuxuu yiri walaalkii baa u qalma inuu shaqada ka soo baxo maadaama dhammaan ay u dhameystiran tahay tilmaamaha laga rabay atooraha matalaya musalsalkaas Najati waxa uu aqbalay inuu noqdo atooraha musalsalka waxaana uu markii ugu horeysay noloshiisa bilaabaya wax ku cusub oo san garanayn sida loo sameeyo iyo sida loo matalo musalsalkaas magaciisa waxa la yiraahdaa waadigiyeyda markii ugu horeysay oo musalsalka la soo bandhigo waxa uu yeeshay taageerayaal aad u fara badan aad baa looga helay waaba la rumaysan waayay musalsal noocan ah Turkidu soo saari karto waxa uu noqday musalsalkii ugu daawadashada badnaa waddanka Turkiga dhexdiisa waxa uuna isdaba joog ah oo hadba la soo saarayay qayb kamid ah muddo 12 sanadood ah waxa uuna Najati ka helay lacag aad u fara badan oo kor u dhaaftay 15 milyan oo dollarka Mareykanka hantida uu ka helay waxa uu ka faa'iideystay inuu sameeyo shirkad soo saarta filimaanta waxa uuna bilaabay in qaybaha dambe ee musalsalkaasi uu asaguba sameeyo shirkadda uu sameeyay oo soo asaastay in ay soo bandhigto waxa uuna walaalkiis ugu abaalceliyay inuu noqdo caawiyihiisa koowaad nasiib darro Raji waxa uu bilaabay in uu xaasido walaalkiis guusha walaalkiis ee degdeg ah sidoo kale caanimada degdeg ah ee walaalkiis gaaray waxa uu bilaabay inuu barnaamijkii iyo qisooyinkii uu qorayay ee musalsalka uu qorayay inuu joojiyo waxa uu dareemay Najati arrinkaasi waa ayna murmeen ugu dambeynna wuxuu ka ceyriyay shirkaddii waxa uu dareemay Raji xanaaq aad u daran waxa uuna go'aansaday walaalkiis inuu ka argoosto oo burburiyo waxa uu sameeyay shirkadaas oo tartan la galaysa shirkadda walaalkiis soona saaraysa musalsal la mid ah musalsalka ay soo saartay balse waa uu ku guul daraystay wayna u suurtoobi weyday wixii uu ku fakarayay wuxuu islaahay musalsalkani waa guulaysan doonaa laakiin waa uu fashilmay waxa go'ay xiriirkii u dhaxeeyay Najati iyo walaalkiis iyadoo ay sabab u tahay khilaafaadkaas oo kala dhex galay maalin kamid ah maalmaha ayaa Najati waxa ku dhacay shil gaari ayuu galay aad u daran isagoo u geeriyoon raba shilkii uu galay ayaa waxa lagu sameeyay qalliin qaatay 2 saacadood ilaahayna ku badbaadiyay nasiib wanaagiisa markii uu xanuunkii ka soo toosay oo uu soo miirsaday waxa uu dareemay naxdin daran iyo xanaaq iyo murugad aad u daran kadib markii uu ogaaday in dhammaan eheladiisu ay soo booqdeen marka laga reebo walaalkiis Raji xiqdiga iyo xaasidnimadu waa dambigii ugu horeeyay oo samooyinka ka dhaca markii uu shaydaan nabi aadan xasday waana dambigii ugu horeeyay oo dhulka guudkiisa ka dhaca marka qaabiil haabiil oo walaalkiis ahaa xasday si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe like follow iyo share waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabad galiyo salaam markasta